مناسبة تاجيريدا مشرح مدحويني هجامية حزبي وذاكير حلبان عبد الرحمن عبد الشكور والصدر وحنا ذيك كما علينا وقت قاليجا يسيد ونعكسن أبنا جلسوا قبل كشان مناسبة تاجيريدا وحنا هلك نقول يا وقاس محمد علاد سيدني سيو برنامج كه إنه غفروا وقاس كه بسم الله الرحمن الرحيم دمان dadweynaha sharafta badan marwooyin mudanayaal gabdho wiilal dhammaantiin ka soo qayb galay xafladan waa idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dadkana soo ajiibay nagala soo qayb galay xafladan sida sharafta leh aad noo soo ajiibteen aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaynaa tan kale waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dadkii xafladan soo qaban qaabiyey oo shaqada badan geliyey iyo jawiga badan ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin munaasabadan quruxda badan oo la soo agaasimay waxaa loogu talagalay musharax madaxweyne xildhibaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur mar labaad aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sidaa noogala soo qayb gasheen waxaan jecelahay marka wax yar inaan ka taabto aniga furitaanka la leysiiyey laakiin xoogaa derbiga waa riixanayaa waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto taariikhda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharax madaxweyne ahna xildhibaan ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan saad ula socotaanba soomaalidu uma baahna cabdiraxmaan taariikhdeeda waqti badan in looga dhuwiyo looga sheekeeyo waa wada taqaaniin kuwa gudaha jooga kuwa dibadda jooga waa cabdiraxmaan waa nin aad loo yaqaano taariikhdiisa cabdiraxmaan wuxuu soo galay siyaasadda soomaaliya 15 sano ka hor asoo nin yar ah oo ingiriiska jooga ayuu halkaas ka soo baxay halkaasuu ka soo bilaabay siyaasadda jagooyin sare ayuu ka soo qabtay dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee tiimkii sheekh shariif anugu ilaahay hadda waxaan aaminsanahay inaana ka bixin ku-meelgaarki marka jagooyin sare ayuu ka soo qabtay arrintaas dowladdaas kabacdi waxaa kusoo xigtay tiimkii xasan sheekh asagana wuxuu ka ahaa nin advisor ah oo madaxweynaha advisor u ah tiimkii farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu noqday mucaarad
wuxuuna furay xisbigii la yidhahdo wadajir ilaa waktigaas wuxuu ahaay 5 sano lasoo dhaafay wuxuu ahaay nin mucaarad ah oo isku daya inuu saxo qaladaadka dowladda waxyaabihii loo idmaday dowladda oo ahay dib u heshiisiinta federalismka maaragtay ummaddii in la isku raadiyo arrimahaas ninka la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur dhibaato badanaa kala soo kulantay waxaan jecelaha marka inaan derbiga aan sii riixdo inaan 3 qodob aan yara xoogaa dul istaago qodobka koowaad wuxuu ahaa oo dulmiga ahay oo aad iyo aad loogu dhibay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdishakuur arrintii badda waa la socotiin arrintii badda executive-kii dowladda oo ahay madaxweynihii prime ministerkii arrimaha dibadda waxba lagama weydiin cabdiraxmaan lagu shaabadeeyo la yiri bad buu gatay qoloyinaha baddiiba waxay ka dhigeen neef xoolaa oo inta lasoo qabto suuqa la geeyo la gato badda saas laguma iibsan karo waa arrin aad u ballaaran waaye cabdiraxmaan arrintaas dulmi badan baa lagu geystay dhibaatooyin badan buu ka soo maray laakiin aqalkii soomaalidu waxaa lagu yaqaanaa dad aan qaadan dulmiga iyo dulliga soomaalidu waa kacday arrintaasna cabdiraxmaan waa laga xaal mariyey cimaamadaa la saaray soomaali weyna aad bay ugu mahadsan tahay arrintaas laakiin qoloyin yaryaroo waxaa jira haddaan xoogaa qolada uu bixiya CPB iyo cayaarka barnaamijyadii qola meelaha weli waxay la taagan yihiin right now ninkii badiyuu gatay doqonta waxaa la yidhahdaa meeshii lagu dagaalay meeshii lagu heshiiyey ma ogeyn war ninkii waa la xaal mariyey oo ninkii baddi waa badbaadiyey ma gadanin weli CPB way taagantahay waxaa ku soo xigay arrin ayadana aad iyo aad u xanuun badneed oo ahayd assassination loogu talagalay cabdiraxmaan cabdishakuur in lagu dilo arrintaas waxay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badneed dhalinyaro badan oo xoogga dalka soomaaliya ka mid ahay ayaa meeshaas ku dhintay cabdiraxmaan waa lagu dhaawacay laakiin ilaah baa ka badbaadiyey ma uusan dhimanin waxaa dhacay marka beelweyntii oo cabdiraxmaan cabdishakuur ka dhashay maalintaas waa shireen qoladana daba jeexiye iyo kuwa yaraysu iyo waa taqaaniina beelweyntu ka dhashay waxaa la yidhi arrintaa waa ka fal celinaynaa cabdiraxmaan waa hor istaagay wuxuu yidhi arrintan laga fal celin mayo dadkaan waxaan baraynaa waxa la yidhaha sharciyad sharcigu waa inuu shaqeeyaa aad iyo aad ayaan arrintaas cabdiraxmaan ku siinaynaa liidashiimo iyo credit aad u wacan beelweynta uu ka dhashay waa taqaaniin waa beel waxaa lagu xantaada waxba ma sheegin oo arrinta waa iska 4.5 qola dumiska ku fiican inuu ka dhashay cabdiraxmaan cabdishakuur laakiin cabdiraxmaan aad buu ugu guulaystay arrintaas inuu yidhaahdo arrintaa waxaa uga fal celinaynaa si sharci ah ummaddana sharciga in la baro waxaa ku soo xigtay arrintaas waa laga aqbalay waa la socotay waxaa ku soo xigtay arrintaas markii la dejiyey oo la xalliyey oo waxaa ku soo xigtay qola oo group oo wadaada ah ma aqaano inay CPB ahaayeen iyo some form of qabiil abaabuli inay ahaayeen ma garanayno waxay yidhahdeen cabdiraxmaan mar uu ka khudbaynayay jarmalka uu yiri muxuu ahay to waddankaana dee waa u jiqan waa taqaaniino jarmal la yidhaahdo gabar baa ka talisa gabdhuhu waa xukumi karaan fikirkaasna anigu waa qabaa gabdhuhu waa joogaan cawada gabdhuhu waa xukumi karaan waxaan jecel lahay madaxweynaha soo socda insha allah gabar inaan ka dhigano aad bay u fiicnaadeen cabdiraxmaan arrintaasaa laga maagay wadaadadii dilayba ku xukumay war dhibaatada dhacday waa marka arrintaasna waa laga soo gudbay ayadana ayagii yaa kala jabay oo waxaa la yidhahdaa xaqu feero uga dilaacay ayagii yaa isweerareenoo gurub u kala baxayo arrintaasna cabdiraxmaan ilaahay waa ka soo badbaadiyey arrimahaas ayuu soo maray cabdiraxmaan cabdishakuur musharax madaxweyne 5 sano lasoo dhaafay waxaan jecelahay marka waa sheegay arrintan furitaankaa laysiiyey laakiin xoogaa derbiga iska riixday waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo warkayga anoo soo gaabinaya
inaan u diro baaq waxaa la yidhaahdo baarlamaanka soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose. aqalkii sare waa lasoo dhameeyey, waa diyaar. golihii shacabka waxay ka harsan yihiin, isagana waa lasoo dhamaystiri doonaa. baaqa aan u dirayno marka waxaa weeye golaha labada baarlamaan ee aqalka soomaaliya in ay doortaan, gacantooday ku jirtaa. mustaqbalka soomaaliya ayaa gacanta ku haya nin dalka u hiiliya, diinta u hiiliya, sharciga u hiiliya, sida cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale. dardaaranka aan u diraynaa waxaa weeye baarlamaanka labada aqal waa taqaaniin ninkaa dooranaysid waa cabdiraxmaan cabdishakuur. intaas haddaan kusoo kaabiyo hadalkeyga, waxyaalo badanaa ii harsan, laakiin waa derbiga siima reexan karo. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa saaad uga soo qayb gasheen, noona soo ajiibteen. mar labaad, soomaaliya ha noolaato, ha israacdo, ha tooso. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xafladana waa noo furan. markan waxaan u yeerayaa Aways Muxidiin oo ah gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee Australia. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha, gaar ahaan dadkii soo aasaasay xafladda quruxda badan. runtii caawa halkan waxaan iskugu nimid inaan taageerno ninka la yidhaahdo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame taariikhdiisa waa laga sheekeeyey. wuxuu ku dhashay magaalada buuloburte, meeshuu kusoo barbaaray ilaa iyo secondary meesha uga soo baxay. kadib jaamacad wuxuu galay suudaan ku taalo oo International African University la dhaho. wuxuu kasoo qaatay bachelor degree oo law ah. kadibna wuxuu qaatay bachelor mataqaana master degree wuxuu kasoo qaatay wadanka Malaysia, University of Malaysia ayuu kasoo qaatay. kadib wuxuu ku biiray ama ka mid noqday wadanka Ingiriiska. waxyaalo badan ayuu ka aasaasay group la yidhaahdo Somali Concern Group ayuu ka mid noqday. chief editor wuxuu ka noqday goobjoog. howlo badan ayuu soo qabtay. marka dambe siyaasadda markuu soo galayna mataqaana waxyaalo badan ayuu dowriga ka qaatay. mar wasiir qorsheynta uu noqday. wuxuu noqday ninkii chief negotiatorka ninkii Kampala Accord door weyn ka qaatay. isla markaasna wuxuu door weyn ka qaatay shirkii lagu qabanayay Djibouti ayuu door weyn ka qaatay. ujeedada caawa halkaan isugu nimid waxay tahay in la taageero. yaa la taageeraya? qofka markuu wax qabtaa la taageeraa. taageerada nooc kastay noqon kartaa. taageero dhaqaalay noqon kartaa. caawna si wanaagna lama weydiin anaga. taageero dhaqaalayna lama weydiin anaga. raashin loogu daray. taageerada waxay noqotaa qofka in faataxada loo maray noqon karta. taageerada waxay noqotaa qof kasta xildhibaankiisa inuu la hadlo oo yidhaahdo yaa ku habboon meesha xilkan loo dhiibi karaa. cabdiraxmaan cabdishakuur waxyaalaha hogaamiyaha laga rabo sifooyinkood ayuu leeyahay. maxaa ka mid ah? waa nin codkar ah oo codkiisa mataqaana dadka gaarsiin karo. waa nin runtii mataqaana haryey ah. waa nin aan cabsanaynin. waa nin runta u dhow. waxyaalaha lagu yaqaano qofka bini-aadinka la rabo. qofka haddii la rabo in xil loo dhiibo 3 shay ayaa la fiiriyaa. hawshaasi loo dhiibaya aqoon muu leeyahay, daacad muu yahay, kartideedana ma leeyahay. waxaan filayaa cabdiraxmaan cabdishakuur 3daasba inuu ku sifoobi kara ayaan qiyaasi karaa. marka ummadda Soomaaliyeed maanta xaaladda ay ku jirto, abaarta ay ku jirto, cudurrada haya, dhibaatada haysa, cadaalad darrada ka jirto, dhibka maanta ka jiro gobolada ka jirto, doorasho oo la leeyahay qof lama dooran karo, xilbal ma dhoofi karo. dhibaatadan Soomaaliya ku jirto waxaa ka saari kara qof ilaah ka cabsanaya, ummadana u gargaaraya, oo wanaag ka shaqeynaya, aqoon leh. cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin aqoon leh oo mataqaana ilaahay master degree haysta. waa nin xagga diintana ku wanaagsan. waa nin mataqaana ummadda isu keeni karo. waxaan aaminsanahay in waxyaalaha lagu tilmaamayo qofka leadership lagu tilmaamayo waa nin dheer oo xoog leh oo qurux badan. waxyaalaha in America marka madaxweyne la dooranayo waxyaalaha la fiiriyo waxaa ka mid ah ninkan nin qurux badan ma yahay, nin jahle miye, laakiin qof gaaban oo Aways Axmed haddaad meesha keensato waa aragtaysa mataqaana.
عبد الرحمن ويستاهل وحلكان وقلما ما هاي ما تقال قويل عبين حاسن وحكقول إني له عبد الرحمن ودواء أنا أقول ملهي لكن ولاقيس بدنا السوق على الفيسبوك مقالة كقول تدي أفكار كانت dad badana ma taqaana igu raac boqolkiiba 98 boqolkiiba 99 way igu raaceen odawaa waxa ka sheegaysa waa wax run ah marka anigu odawaa anigu madafkiisu ma dhalan laakiin maalin wax laga yaabo madafkiisu laakiin odawaa wuxuu yahay wax ka sheegay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur maadeer mani laakiin waa nin ma taqaana haliyay ah dadaal wax badan oo iftiimiyay ummadana u sheegay uuna u qalma inuu maanta madaxweyne ka noqdo Soomaaliya إله وحنا برينا إلى تاجر الفاتحة الأمر قف كاستقبيل بوكل الشيء اللبان وليه تاجر وحكم إذا إنا اللبان كاجلا هذا الشيء أتلاقي ونيكو كوها بالعقالة ده دوت لكن كوها بالكالو بيبو ومدان متقان وحبابي وحيتاي ومدان سوماليا مانت ووطن كلية إن أفريقيا أو متقان لقيه اللي كان انكست إن مرينس حق بطة أنا حق إذا ملك استطاع في رست سومال ووطن تاجر ولا سوق لكن حبها أنت كلية وكان في عن إلى هشم وكان في عن سير ويركلا ذلك واحد ورنا إيه وحراشة إن منطقة التسالي إلى هذا نكاس نوع أفضل نكاس على الأرض مركو حاول رجال عبد الرحمن عبد الشكور إنه نقضب كي ومدة الحكامية إلى منطقة كتوسي ولا دردار بيا وحنقول دردار بيا وهذا قبل كرين وهدودي البين كون قول السيد فرماجة بين تقول شيء هاي هالشيء وهذا تقول وهذا البان بريت هذا قبل كرين هدين وحسن قبل يدرتي للدنيا بس يا قف كل الدين صون أونلاين أود هذا ما هالشيء ومتى أوكرجار طويلها أوكرجار إلى هالترتيس أوكرجار درداري كيو أنت أصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. كسوق الكرياشة. أجي دمر. وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة العاوة تاجريدا اللواء مشرح الدنيا حزبي الدنيا حزبي عبد الرحمن عبد الشكور وصلت عارف سوين مالي waxaan leenahay ilaahay haga dhigo guulaysa Allah ka dhigo taageerada moral support loo baahan yahay runtii anaga codka ma bixinayno laakiin waxaan awood u leenahay dadka codka bixinayo inaan influence ku lahaano oo aan idhaahdo warheel waddanka wuxuu qabanaya ninkaas inta hala taageero runtii haddii maanta xisbiil isu dooranayo way ficnaan lahayd maxaa yeelay xildhibaanada soo iibsaday iyo waxaa in ayaa laga barin lahaa aniga shaksi ahaan xisbiga yidhaahdo walaalaha midoobay ayaan sameeyey oon u diyaargaraysna haddii ay xisbiga isku dooranayo inaan hirgeliyo laakiin si daro darashada ka baxday waxay noqotay in si dadban isu doorto mustaqbalka way imaan doonta insha allah waxba yani wanaagiisa iyo taariikhdiisa horaa looga sheekeeyey iyo sabarkiisa محمد عراد خيري صاحبك جاسكا وحيري دبات بدر لو جيستي وسكري لكن وكان صبر أي مسلمي أنا كنا وانا يقانايو إنه واحد منهم وأحمد دميان لكن وين أرسلان ويكون كل شيء وجاسكا تاسع كصحيح وأحمد دميان لكن وين أرسلان صار أرسلوا أي مسلم أرسلين تاسوا وحوي ماشي كده حتى نحي جريدة الصومالية كله فيكتوريا especially ميلبورن تاجر إنه وحلوبة هي عد يعني عد جوابه إلى كم الجنة عبد الرحمن مارتا وحلوبة هي جرب كما كلية إن أدخل وحلوبة هي لا ولا كابين راسم يو ما يسمع سوى شيء كده يجود بحلوبة هي مركب كذا غير ميلبورن هاي تاي بكبر الوجبة هي جريد وحنا هاي سوتيسن أو ماركتي دبكة يو يفتو وذاكو مركي جيرت ماذا مركو بوري ماذا مركي نين تبدأ نوعي ماذا استاجرنا يقف كأرنو جريد جن يوتين استاجرنا مركي نقول استاجرنا أو ما شو بيجرو كنتي وأنا نجمع دنيا هاي
وأن هذا كنت شخصي هذا هو عبد الرحمن محيري أنت كسرتي دعايته هي مثلا بوزيشن هي كسرتي هبينا كم وصل قاوني حوالي أنا سبيش وكسرته يصير واحد لايو يجلس ماذا مرة كم تنازلين ninka waxaa garanaysa waxa kan leadershipkiisa inay adag tahay qofka markii la dacaynayo oo dhan laga duqeeyo giba uu sameeyaa laakiin never inta la ciqaabayo la qeybinayo la saamaxay oo ka tiradahay habeenna kama uusan leexanin madhabku uu aaminsan yahay ama ajandaha uu aaminsan yahay uu ku adkaystay uu ku duulaan tagay xildhibaannimada siduu ku soo galay soomaalida ismanahay wuu helayaa laakiin dadkii oo ka dhashay turkish way u hiiliyeen soomaalida kalena way u riyaaqday wuuna soo galay taa waxay ku tunaysaa geesinimo iyo raganimo dheeraad ah inay tahay xukunka waa la wada raadiyaa nina wuxuu ku raadiyaa si jilicsan nina si adag ayuu ku raadiyey inuu ku soo baxo waa soo gudbay reerkii hore waa soo gudbay baarlamaanka wuu soo galay xildhibaan maanta codkiisa la dhegaysanayo waaye wuxuu sii rabaa inuu intuu ka sii dalaco uu noqdo madaxweynihii dalka Soomaaliya uu noqdo kii miday Allah ka dhigo Allah u sahlo waan taageeraynaa waan taageersanahay qodadiisuna waa maqlayseen oo ah in aan iscadaadinin annaga janan waa taqaanaan daahir cilmi inna qarshay waa janan Soomaaliyeed la dahab karam iyo ku helay deegaanka ku helay inuusan soo gelin waxaa lagu sameeyey gabar oo maaragtay oo 20 jir ah ee lagu bahdilay inuusan soo gelin oo ah wax aan qaadan weyn runtii uusan u qalbin wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed maanta waa sidii jir after sano inaan ku soo siinaa rabnay laakiin waxaa loo sheegtay awood intaqana galmudugada oo qorqor ku sheegtay qorqorna awoodda way ka sii weynado meel sare ka tagay farmaajo iyo gruubkiisa ka tagay labadii nolol inuusan daahir soo gelin waa nin waxtar ah ma la rabo inuu soo galo meel walbana iyo gobol kasta iyo degmo kastana taas haysato si looga xuloobo oo mataqaanaa one man one vote loo gaaro waxaa loo baahan yahay maanta qofkii doonaa in laga fikiro xildhibaanada soo galay oo Soomaaliyeed ama lacag ha ku soo galaan ama calaf ha ku soo galaan waxay qaadan karaan ha qaataan laakiin markii xaqa uu yimaado oo qolofka صندوق الجهد إنه يكفي كلام دول لماذا يعني مستقبل الصوماليين يقدر كاس كل اسم لها. مركز وحنوي ريا وكيل كحسبي جودة شيء دلك أستراليا أنا قدوميها جالية دقل مذوق دلك أستراليا مضنا عبد القادر غليظ جدا. حسبي جودة شيء هي جروب كيسو وحنقول إن هاي بروبلمات دعي عدي حللها الوعية صابته الليسكي شنتي سنة واحد لو واحد دب كلام أنا قم باين قرار كلام قررتها مجرد صابته أنت كانوا واقع بس أنت بدل ليسكي أنا قاعد نروح دعي مركب البرياش أنا قاعد نوعي ما دونان واحد اللي كلامه إن الحسب جودة شيء تاجرتان هديها تاجرتان واحد ويا دونتان المه شنت بقوله يوين كويه أخباري هل دونان المه بيش بسويه كير دونان وضياش مدحوينياش ياد هيرشبه الواد مدحوينه شريف حسن 4.5 حكي مادين هيرشبه dadkii dad qaaday dabcin aadan jidka laga xir maalin waa arkaysan jawaari iyo ninka la yiraahdo Sharif Xasan laba nin oo koonfur galbeed wax kaaraan badan ma jirto wixii jidka loo garoonka ka doorasho ma gali kartaan galmudug uma leeyahay nin inta qasha ka karaan badan ku jiro ama ka darajo fiican ama ka darajo badan oo hadda nool aniga ma aaminsan inuu jiro wixii ka dhacwaa looga Puntland 13 la soo diray حسوق كذا عند مسمرات ولا ودوية وحاسو من كذا حتى بروبلم بتيرا وحاسو من حبي عين حبي جعيل والله تيهرة أردن ولا جوضة بح مركب وحال ربا حتى عن الأدوك مركب قف كحيل كسير سن عن نكفير سن و مال كلا فيريو حتى أو قف وقت بكرات معي وحب كل مكان أنا حتى تين هرع دول وابدي ما تقول ركنا وابدي تركنا وابدي تكين مركب حب كوالو ربا لكن وحال ربا قفكو باللمضة أو قاضو إيه الدستور كانوا اسكو شقين dadka inteena marka maxaa laga rabaa inaan dastuurka ka waardiyeysano balanta qof qaadan leeyahay shalay
كان ما أصلا هذا الوجه وحلو حتى ورنا يوم هذيك الدولة waxa xoraysa ma soo baartaan waxa qayr kale soo baartaan war dadka iyo anaga dawladda lama qalna dadku waxa kala dhaxaysa nimanka dawladdu madaxdii ee xukunka ee balqaadka ay sameeyeen in ay meel ku sheegaan oo ay si sax u shaqeeyaan oo dimuqraadiyadii keenan waxa iska laakiin anaga waxa naga dhaxay oo kala dheeriya nimankan waa la tartanay waa naga been badsheen waa naga qaadeen haddaan ka aamusnaan mar kale inay kulli cishadaan ka shaqeynaysaa markaas ma weydiin anaga waa inaan qorno wixii nimankan sheegeen inaan qorno oo hadda uu kan caalan dhisay meel la xawatay andra saaxib inta ka dhiman dhamaystir risiidkeen wax kale anaga ku dheeri ma jirto markii ma risiidkaas aan weydiinayno kana hadda ugu yaabnaa anaga waa shaqadeeni mucaaradna shaqadiisu wuxuu yahay haddoosan dawladda ahayn qaybta kale waa mucaarad qaybtii dawladda noqoto maan qaybta kale waa mucaarad shaqadoodu maxay tahay inay dawladda nagastan inay kursiga ka ridato dadkan u shaqaysto kana waxaan u yeerayaa gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland Maxamed Fawzi Cabdiraxmaan ninkii wuxuu ahaa waddankan doona noo tiilanay 2017 doontii aan la raacay doontii markay ay socoto badda ay gashay meel laga dabaalan karo markii laba Cabdiraxmaan ka soo tegay ninkii ugu horreeyay oo doonta ka digay Cabdiraxmaan Shakuur ah doontii waa dhaqaaqday badweynta tagtay Cabdiraxmaan afar sano wuxuu doonta markay kor u kacday markay 100 sano dadkii qabto noqday geesku haya Cabdiraxmaan Ruuba Cabdiraxmaan doonta iyada oo magaceeda FF la dhaho hadii wuxuu noqday marba ku deganaa dhinaca rag kale oo asxaaba joogo oo Cabdiraxmaan runtii doonta iyada kula deganaa hase ahaatee maanta isaga u fadhinaa caawa halkan isaga inaan runtii aan ku sharafno dadka xildhibaanada ee wax dooranayaan aan baaq ugu dirno Cabdiraxmaan doonta kala hana saarina midaas oo kale hanoo geynina waxaa noo doorataan Cabdiraxmaan Cabshakuur oo kala oo doonta ay badbaadinay mar walba saxad oo waasitiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Maslax Daahir Goore sacabka suwana waxaan rabaa wax yar inaan taabto arrinta xisbiyada oo runtii loo oran karo Cabdiraxmaan wuxuu ahaa ninka ugu codka dheer oo ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad u gaarsiiya wanaagga ay asxaabtu leedahay sida aynu la soconno xisbiyadu saddex qodob oo yaran baan ka soo qaato asxaabta ama ururadu waxa la oran karaa waa iskeelka kaliya oo bini'aadamku uu kala badbaado tusaale haddaan idin siiyo waddanka aynu joogno Australia haddaan xisbiye ka jirin way adkaan lahayd in qofka Perth jooga iyo kan Brisbane jooga iyo kan Melbourne jooga ay aragti ku midoobaan laakiin waxa hadda sahlay in qofka Brisbane jooga iyo kan Melbourne jooga ay aragti ku wada shaqeeyaan waxaan maleynayaa inay xisbiyada tahay marka taas waa midnimada oo xisbiyadu ay keento ay meesha ka saarto wixii bulshadu ay isku kala qaybin lahayd marka annagu hadda gobolada ma haysan laakiin waxaan maleynayaa qabiilka meesha ka baxayo kii Garowe joogay iyo kii Beledweyne joogay waxa laga yaabaa inay wada jir ku midoobaan aragtidaas ay wada difaacdaan midda kale oo aan aaminsanahay xisbiyadu inay ku fiican waxa weeye waxa lagu bartaa dawladnimada sababtoo ah qofka xisbi ka soo bilaaba wuxuu baranayaa shaqooyinka dawladnimada xisbigu waa dawlad yar yani ololihii baa ka socda qof baa lagu dhex dooranayaa waa loo tartamayaa xoghayn bay leedahay maaliyad bay leedahay wax walba ay leedahay marka waa fursad aad iyo aad u qaali ah oo qofkii ururada soo mara ama xisbiyada soo mara waxa u fududaanaysa inuu siyaasadda qaybaheeda kaliya hogaaminta dalka uu ka qayb galo arrinta xisbiyada u kaca oo xildhibaanka ama musharaxa caawa aynu isugu nimid oo hormuudka xisbiyada waa inaynu u wada istaagnaa oo wada taageernaa Cabdiraxmaan waxaan aaminsanahay inuu yahay siyaasiga kaliya Soomaaliyeed ee markuu wax cabirayo qaata aragtiyada islaamka iyo taariikhaha islaamka waa ku yihiin siyaasiyiinta kale Soomaalida waa midda maalin walba masaxiib ku ah markana waxaan u yeerayaa Ahmed Hassan Dalac wakiilka Somali State Australia aragtida siyaasiga ee Cabdiraxmaan Cabshakuur uu xambaarsan yahay waa mid ku salaysan dhaqanka Soomaalida iyo diinta Islaamka iyo aqoon xigmadeed oo uu leeyahay dhaqanka Soomaalida taas waa qodobka kale waxa weeye lahaansho inuu wuxuu rabay inuu abuuro ka duwan wadadii siyaasiyiinta Soomaalida ay qaadaysay mid ka bedelan inuu qaado oo maxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed siyaasadda ay leeyihiin mudamcaan oo abuuray Cabdiraxmaan Cabshakuur sanadkii haddayna soo dhaafay wuxuu sameeyay sanduuq
ilaahay war wax kusoo rita soomaalidu waxay rabtaa siyaasi ayna maal gashanin inay haddana eedayso ama qadar lacag ka soo qaatay ama imaaraad ka soo qaatay ama maraykan ka soo qaatay nin walbana ninkii wax gashaday wuu shaqaynayaa cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sameeyey siyaasaddaa ka bedeleen sanduuq buu furay ninkii $100 ku darsanaya kii riyaal ku darsanaya kii $100,000 ku darsanayaba dhowaan si aad ila xisaabtanto sanduuqa wax kusoo ritay siyaasaddaasi hadday hirgasho dhammaan waa kantarooli lahaydeen intiina war annaga wax ku dhibina wax naga noo dhibada odhan lahaydeen waa waddo runtii aan isleehay gacanta ay ku soo noqon kartaa siyaasadda soomaaliya haddii la sameeyo waa aragti muhiima fishinkaasi oo ninkii hadduu shisay ku guulaysanina siyaasad hankalow inaad dadka soomaaliyeed halkaa ku haysto waa muhiim aan u jaleeco dhanka haweenka waxaan u yeerayaa xaawo cabdiqaadir deele gudoomiyaha Somalia Australian Women Health Care waana nin samir badan sidii hadda la isku raacay dadkii oo isku raaceen waa nin samir badan aad u samir badan god waxyaalo badan baa dhigaystay oo laga hadlaayo marka Soomaaliya oo dhan waxaa la rabaa ninkii wax u ah oo wax u noqonayo inay doortaan dowladnimadu dheerdheer maaha dowladnimadu waa axyaa wadan dowladnimada maanta Soomaaliya taalo ilaahay waxaan ka baryaynaa mid khayr qabta oo annagoo dhan nasinta oo qabiilka naga reebta oo hal mid aan ku noqono isku jeclaana Allah noo keeno dowladnimadu waxaa waaye waa axyaa wadani dowladnimadu waa qaali dowladnimadu waa qaali shakhsi ma laha Soomaaliya oo dhan baa leh odayaal baa leh habraa leh dhulka caawa dhalanayo wax kule wadanka calanka wax kule marka ilaahay waxaan ka baryaynaa hal cudur baan nahaye bal horta qabiilka Allah naga reebo ilaahay waxaan ka baryaynaa annagu gabdhaha haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed qabiil shaqo ku maliyo laakiin ragga xaqa Allah tuso ragga Soomaaliyeed xaqa Allah tuso ilaahay waxaan ka baryaynaa xaqa Allah tuso waxaan u yeerayaa markaan ugaas Axmed Naasir Khaliif man aad baan idin wada salaamaya wadaqameed waxyaalo badan oo joogaro badan marar badan kalaha inahaas waxaa kaloo siyaasad idinka wadaa salaan ugaas cali ugaas axmed ugaas baanguray oo dadkay ah oo magaalada isku hadlaya ah oo salaan aan idinka wada salaantaana iga gudoomi ma aanan moodaynin hadalka ku jirin hoolka waa hadal badan ma ahan maayo aad iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa musharax xildhibaan musharax madaxweyne gudoomiyaha ururka wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo u sharaxan inuu dalkeennii hooyo ka badbaadiyo dhib iyo amni xumadii ina haysay una horseedo wanaag iyo kala dambeyn xasilooni aad iyo aad baan arrintaa ugu taageersanahay una soo dhaweynaya xildhibaan ka mid ah xildhibaanadeenna hadda soo baxay oo horeyna ugu sii ahaa geesi ah codkar ah hiiro ah aan filayo inay ka mid noqon doono dadka soo saaraya xildhibaan musharax madaxweyne u codayn doona waa xildhibaan mahasala la saxabeyn geediyowga daawan doono geesi garlab maaragtay dadkeena Soomaaliya dadka ugu kalsoonahay kamid noqon doona waxaa kaloo raacinaya oo fursadan caawa ah aanan muddo badan u helin xildhibaan kale oo isna la mid ah oo garlab ah geesi ah hiiro ah waa wasiir cabdiraxmaan odowaan أحمد فقيه ويسوون الله من شايف ذلك أقوال كابرين دواحنا مرينا ووضع باللفكاس إنه واحد من يتقبل أي نقبل بعدين يلا بدل ما مقدرين إنه آلي آلبان أريد أوصل دويننا إنه صابحه ووجود عيننا وقرب تاجنا وكتاجرسنا مشارك مدحوينا وحنا مرجين إنه إلى كل يصدقه آلي آلبان السلام يا رحمتي السلام عليكم. waxaan u yeerayaa markaan Cabdisaaq Shiina oo ah gudoomiyaha Somali Victorian Voice horta taageerada waanu u fadhinaa waanu taageeraynaa
waxaanu leenahay haddii khayr kugu jiro ilaahay kuu fududay markaa musharaxiinta soo wada qabto cabdiraxmaan dhowr shay aan ku ammaanayaa oysan lahayn musharaxiinta kale waa midda ugu horreysa hortooda isagu markastoo meel soo istaago calaamadiisa xisbiga iyo magaca xisbiga hortooda ku hadla midda labaad wax badan laga dhawaajiyey in la yidhi cabdiraxmaan waa la weeraray iyo hebel la sameeyey cabdiraxmaan nin galmudug ka soo jeeda waa inuu laba calaamood ninka reer galmudugga waa laga helaa xabad ujoog inuu yahay iyo dood ujoog inuu yahay waa in labadaa laga helaa haddaanu labadaas lahayn nin reer galmuduga maaha haddaanu galmudug ahaan lahayna waa hor waxaa la diyaarad raacla ingiriiska aadina marka wuxuu meesha kusoo fadhiyaa waa xiliya reer galmudug waxaan u yeerayaa markaan mahad xaaji maxamed warsame laakiin hadda waxaan malaysa dadka soomaalida kulli inay arkeen wuxuu ka digaayay dowladda systemka dalka kusii waday waddo khaldan oo kalisanima inuu muddo ka sheekeynayay uuna ka dadaalay waxaan isleeyahay inuu yahay qof aaminsan waxa uu aaminsan yahay inuu marba ku taagan yahay markhaati waxaa ka ah inaan xasuustaa 13 la yidhi aqalka salaadasiina gobolka banaadir markii arrintaa ay soo baxday musharaxiinta kale kulli waa aamusan waa baqeen waxaan ku yidhi arrintaa sharciga ma qaabilsana ma ogola konstitutionka waddanka 54 ayuu aqalka sare ogol yahay in aqalka sare la fadhiisiyo konstitutionka wax laga bedelo borosyaas cusub la geliyo dood soomaaliya la geliyo ayay qaadanaysaa wax soconaya maaha laakiin musharaxiinta kale waxaa malaysaa inay arrintaas kale waa adag tahay inaad communitygaaga iyo deegaankaaga aad ka hortimaado tiraahid waxaan wax saxa ma ah sharciga ogol yahay marka xildhibaanada cusub ee baarlamaanka waxaan leeyahay dowladnimadu waa sharci waxaan u baahannahay oo dalkan u baahan yahay macquul ma aha hogaamiyaal sharciga dalka u yaalla aan raacaynin in dalka lagu aamino waxaa muhiim ah dalkan in lagu aamino doorashada soo socota cabdiraxmaan cabdishakuur oo aan ka arkayn in muddo ah inuu sharciga dalka mar walba hala raaco lahaa baarlamaanka u fiican tahay aqalka sare u fiican tahay dowladnimada u fiican tahay ummadda soomaalida u fiican tahay ma dhici karto waxaan waa dowladnimo aan sharci shaqaynaynin ma shaqaynayso waxyaalaha umad ahaan haystee ayay ka mid tahay markan waxaan u yeerayaa nabadoon maxamed faarax marka ugu horeysa intaana wax kala oran waxaan baryayaa allaha keligiisa ee ilaah kaloo xaq lagu wadaajiyo ee ilaah kaloo wax la wadaagaajiyo ee ilaah kaloo 99 magac oo asmaa'ul husna jiro ee isagu wax walba ee wax walba ee wax walba waxaan weydiisanayaa hawshaynu caawa u fadhino aynu meeshaas isugu nimo sidaynu doonayno iyo sida dalku doonayo iyo in ilaahay nooga dhigo oo cabdiraxmaan cabdishakuur doofe adduunyada mar unbaa laga dhimanaya hadduu ninku wanaagsan yahay oo madaxweyne wanaagsan yahay ama xildhibaan wanaagsan yahay ama wasiir wanaagsan yahay ama arifaac wanaagsan hadduu yahay xil baa kaa saaran ee difaac aad buu u mahadsan yahay nabadoon maxamed faarax markana waxaan u yeerayaa imaamkayga imaam axmed taxow kala soo dhaweeya imaamka marka waxaan leeyahay cabdishakuur waa laga hadlay wixii uu qabtay iyo waa uu qaban doono laakiin anigu waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo ah markii la doorto haddii la doorto insha allah waxa aan rabo inuu qabto horta wax alla wixii dembi la galay inuu dadkii dembiga galay in maxkamad la geeyo si aan qof dambe oo dadka u xadgudbin oo dadka xaquuqdooda loo ilaasho taas markaan ka tagno cabdiraxmaan waxaad moodaa in la doortay in dadkeena meesha jooga waxaa waa yidhahdaan nin doortay doorta ha u dhaadeen marka waa dooranyaysaan leena insha allah waxaan u yeerayaa
inuu noo soo ganaanudo cabdi oo sahal aan idhaahday adeer cabdi oo sahal waa adeerkey waxaan hadda u celinayaa qabanqaabayaashii xafladdan quruxda badan leh marka waxaan rabaa inaan taageeradayda soo qadimo anigu aad baan u taageersanahay guddoomiyaha xisbiga wadajir ahna xildhibaanka cabdiraxmaan cabdishakuur sababahaan ku taageersanana waxaa ka mid ah waxaan arkay inuu sifooyinka hogaamiye uu leeyahay sifooyinka madaxweyne inuu leeyahay sidaas darteedaan ku taageeray califad kale uma taageersanin waayo waa nin ka dhisan cilmiga maadiga ee islaamka ka dhisan weeye waa nin cadaaladda u dhow waa nin xaquuqda u dooda waa nin codkala waa nin haybad madaxweyne leh waa nin mar kasta hadda sidaad maqlayseen wuxuu ku celceliyaa alhayskiisu waxaa weeye cadaaladda waa inay shaqaysaa oo cadaaladda in la ilaaliyo oo mar kasta uu ku celceliyaa haddana waa maqlayseen waa in dastuurka la ilaaliyaa uu mar kasta ku celceliyaa waa nin u dooda xaquuqda dadka la xaqiro u dooda weeye intuu 5 sano oo xaquuqda u taagnaa oo balku mar kasta u dooda weeye marka la xaqiro marka siyaalahaas baan yaan ku doortay oo aan u arkay inuu nin u qalma yahay hogaamiye sifooyin hogaamiye u leeyahay